galinkii hore ee maanta ayaa waxaa xaflad lagu qabtay Qoya Primary School oo ay wax ka bartaan qaar ka mid ah ardayda Soomaaliyeed ee ku sugan wadankan Koonfur Afrika. xafladaas oo ay soo agaasimeen maamulka iyo macallimiinta ayaa waxaa loogu talagalay in lagu doorto ardayga hoggaanka u noqonaya ardayda intooda kale oo subaxnimadan si aad ah loo wada sugayay iyadoo kasoo qaybgalayaasha ay ka mid ahaayeen waalidiinta dhalay ubadka wax ka bartay iskuulka, macallimiinta, maamulka iyo waliba marti sharaf kale. intii ay socotay xafladda ayaa waxa ay maamulka iyo macallimiinta ku dhawaaqeen in Cabdullaahi Asad Qodax ay ka soo dhaxusheen 850 arday uuna yahay madaxa ardayda Qoya Primary School maanta wixii ka dambeeya. Cabdullaahi ayaa ah ardaygii koobaad oo madow ah oo noqda madaxa ardayda dhigata iskuulkaasi. waa kan isaga iyo arday kale oo ka hadlaya sida ay ugu farxeen doorashada uu ku guuleystay Cabdullaahi. nasiib waxaan u yeeshtay in aan noqdo maamulka xigeenka iskuulka. waxaan u mahadcelinayaa macallimiinta iyo waalidiinteeda. waxaa kaloo salaamayaa Soomaalida dhammaan meel joogto. maanta waxaan ku faraxsanahay anagoo ah ardayda iskuulka in loo doorto walaalkii Cabdullaahi Asad maamulka xigeenka iskuulkeena. Asad waa aabaha dhalay wiilka yar ee Soomaaliyeed oo loo xushay in uu hogaamiyo ardayda. wuxuu ka waramayaa dareenkiisa waalidnimo. waxaan maanta aad ugu faraxsanahay farxadan caadi ahayn anagoo ah ummadda Soomaaliyeed matalayna shacabka Soomaaliyeed ee South Africa in ilmahanagii aan ugu nimi farxad inaan la qaybsano taasoo ah ardaygii ugu horeeyay ee noqda gudoomiye ku xigeenka iskuulka ama ilmaha madowga ah oo soo mara iskuulkan unugii ugu horeeyay ee noqda headka iskuulka marka macallimiinta laga reebo ardayda maamulaha ugu sareeyo noqday. marka waxaanu maanta meeshan ugu dabaaldegaynaa oo maxaan ku raadhaa xafladda la wadaagaynaa ilmahanaga gaar ahaan qaybta Soomaalida. kadib markii ay soo itlaatay xafladda ayaa waxaan xafiiska iskuulka kula kulmay Laura oo ka mid ah maamulka. Yes, we are exceptionally proud of Abdullahi. Abdullahi is a very good student of ours. He has shown tenacity and he has performed exceptionally well since he is here at the school. We firmly believe that he possesses leadership skills, and it's just those skills which we would like to help develop. He has done very well thus far, and we believe that there is a very bright future for him. He has been chosen as the deputy specifically for his good interpersonal skills. He has the ability to work very well with learners and with educators alike. And he has been one of those learners who have shown exceptional trustworthiness. tani waxay ka mid noqonaysaa horumarka dhinaca waxbarasho ay ka gaareen Soomaalida ku dhaqan wadankan Koonfur Afrika iyadoo sanad walba kan ka dambeeya ay ku sii badanayaan goobaha waxbarasho sida jaamacadaha iyo waliba madaarista Islaamiga ah. sidoo kale waxaa xusid mudan in ay jiraan macallimiin Soomaaliyeed oo wax ka dhiga jaamacadaha waaweyn ee wadanka. guushan ballaaran ee u soo hoyatay dhammaan ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barto guud ahaan iskuulada ku yaal wadankan Koonfur Afrika taas ayaa waxa ay sare u sii qaadi kartaa heerkooda waxbarasho. Cabdikariim Mursal Farax, Universal TV, Cape Town.